سعيد العابدي باوحو ويلكيس أحمد ابن سعيد العابدي كغشيكي شاكو أساقو ugadhigayo dardaaran wuxuu ku yiri wiilkaygiiyow waxaan la degnaa xaafada Kuufa wiil al-caabud ahaa oo masjidka ku xirnaa wuxuu ahaa wiil waji qurux badan iyo joog dheer leh lagu laray aamusnaan badan maalin baa waxa aragtay gabar aad u qurux badan oo soo jiidasho leh markaas bay wiilkii ka heshay maalin asagoo masjidka u socdaa bay wadadii masjidka u istaagtay waxay ku tiri wiilyahow iga dhageyso waxaan doonayaa inaan wax kuu sheego kadib waxa doonto samee wiilyahow iga dhageyso waxaan doonayaa inaan wax kuu sheego kadib waxa doonto samee muusan la hadlin wuu ka tagay wuxuu aaday masjidka markii uu soo laabtay bay haddana waxay u istaagtay wadada intuu gurigiisii u sii socday baa waxay ku tiri wiilyahow wax baan kuu sheegayaa ee i dhageyso kadib wiilkii baa ku yiri meeshan waa wado anna waan dhibsanayaa in dadku xumaan igu tuhmaan markaas bay ku tiri wallaahi meeshan kuma istaajin inaan ogeyn xaalkaaga iyo wanaagaaga ee hadalka aan kugula hadlayo baa ah naftayda iyo qalbigayga baa kugu mashquulsan adiga ee Allah baan kugu dhaariyay arrinkayga wax ka qabo naftayda iyo qalbigayga baa kugu mashquulsan adiga ee Allah baan kugu dhaariyay arrinkayga wax ka qabo wiilkii baa ka jeestay oo isaga tagay markii uu tagay gurigiisii buu wiilkii salaad u istaagay balse salaadii wuu awoodi waayay inuu tukado wuxuu soo qaatay qalin wuxuu gabartii u qoray warqad dabadeed buu bannaanka u soo baxay wuxuu arkay gabartii oo weli meesheedii taagan wuxuu ku tuuray warqadii wuuna iskaga tagay gabartii baa fiirisay warqadii waxaaba ku qoran sidaan ku bilaabida magaca eebe mid guuda iyo mid gaaraba naxariista ogow gabar yahay eebe sareeyay hadduu addoonkiisa muslimka ku caasiyo wuu asturaa hadduu addoonka ku faano oo caadaysta macaasida Allah wuu caroodaa caro aysan u dulqaadan karin samooyinka dhulka iyo geedahaba buuraha iyo xayawaankaba ee u dulqaadan kara xanaaqa rabbi waxaan ku xasuusin maalin uu cirku noqon doono sidii bir la dhalaaliyay oo kale buurahana ay noqon doonaan sidii suuf la tifay oo kale wallaahi waxaan awoodi waayay inaan naftayda toosiyo sidee baan u toosin karaa naf kale haddii aad tahay gabar xanuunsan waxaan kuu tilmaamayaa dhakhtar daweeyo xanuunada kaasina waa Allah haddii aan kaaga jawaabo hadalkii aad tiri ee ahaa inaad mashquul igu tahay aniga oo qalbigaagu mashquul igu yahay anna gabar yahay wallaahi mashquul waxaan ku ahay hadalkii rabbi ee basareeyay wuxuu yiri وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقدق نبي وددك مالين دو ها وقيامه مركو ودنه إيمان دونتا عبسي درتيد يغو نحسن ظالمنا ومسقنا سوكيه يمد وشفيع قاضو لمغلو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور eebe waa og yahay khiyaanada indhaha iyo waxay qarin laabtu wallaahi gabar yahay waxaan kaaga mashquulsanahay hadalkii Allah qul inni akhafu in asaytu rabbi adab yawmin azim waxaad dhahdaa aniga waxaan ka cabsan haddaan caasiyo eebahay عذاب مال وين يا من عصيت الله يوما غافلا
أنسيت أن الله قد أعطاك gabartii baa ka tagtay una soo laabatay maalmo kadib waxay u istaagtay waddada markuu wiilkii arkay gabartii oo waddada u taagan buu wiilkii damcay inuu guriga u laabto si uusan ula kulmin gabartii baa ku tidhi wiil yahow ha laaban mar dambe ma kulmi doonno maanta kadib ilaa ilaahay hor istaaggiisa maahee gabartii baa ilmaysay waxay ku tidhi ii dardaaran wiil yahow wiilkii baa ku yidhi waxaan kuu dardaarmayaa cabsida allaah marka aad keli tahay iyo marka kaleba dhowr naftaada oo xasuuso hadalkii eebbe وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون eebbe waa kan idiin oofsada habeenkii ogna waxaad fashaan maalintii markaasna idiin soo bixiyaa in la xukumo ajal magacaaban xaggiisaana laydiin celin markaasuu idinka warrami waxaad falaysaan وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون eebbe waa kan ka sarreeya addoommadiisa wuxuuna idiin soo diraa ilaaliye markuu u yimaado midkiin mawdka waxaa oofsadaa yacni dishaa malaa'igtaannada mana gabood falaan ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين markaasaana loo celin dadka sayidkooda xaqa ah isagaana leh xukunka dedejinta xisaabta markaas bay gabartii oysay oohin ka daran midii hore wayna ka tagtay waxay bilowday inay toobad keento oy cibaadaysato kama aysan suulin xaal ay cibaado ku sugan tahay ilaa ay ka geeriyootay wuxuuna ahaa wiilka mid markuu soo xasuusto gabarta mid ilmeeya naxariis darteed